عشركان waxaan ku baranaynaa isku darista polynomialska ayaan ku baranaynaa. marka ugu horeysa intaadan isku darin polynomialska waa in aad kala ogaataa kuwa like termska ah. tusaale ahaan 4x square iyo 2x square waa like terms sababtoo ah 4x square iyo 2x square waxay leeyihiin xaraf ama letter isku mid ah. letterkaasna waa x. midda labaad ay wadaagaan waa exponent isku mid ah ayay leeyihiin. marka haddii laba lambar ay leeyihiin xaraf isku mid ah oo ayna leeyihiin exponent isku mid ah, taa micnaheedu waxa weeye labadaas xaraf waa like terms. tusaale ahaan 5x iyo 3x, labadan 5x iyo 3x waa like terms sababtoo ah 5x iyo 3x waxay leeyihiin xaraf isku mid ah. xarafkaasna waa x. waxay kaloo leeyihiin exponent isku mid ah. exponentigoodana waa 1 iyo 1. tusaale kale 8x oo leh exponent 3 leh iyo 20x oo leh exponent 3. 8x oo leh exponent 3 iyo 20x oo leh exponent 3 waa laba like terms sababtoo ah 8x labadooda waxay wadaagaan xaraf isku mid ah. xarafkaasna waa x. mid kale wadaagaana waxa weeye exponentigooda waa isku mid, waa 3 kanna waa 3. marka haddii laba lambar ay wadaagaan xaraf isku mid ah iyo exponent isku mid ah, taa micnaheedu waxa weeye labadaas xaraf waa like terms. hadda markaad isku daraysid polynomialska, markaad isku daraysid waxa laga doonayo waxa weeye waa in aad isku dartid kuwa leh xarfaha isku midka ah iyo exponentiga isku midka ah. tusaale ahaan 4x square iyo 2x square waa like terms sababtoo ah 4x square waxay leeyihiin xaraf isku mid ah. xarafkaasna waa x. waxay kaloo leeyihiin exponent isku mid ah. exponentigana waa lambar 2. marka waan isku daraynaa labadooda. 4x square lagu daray 2x square waa meeqo? waa 6x square weeye. sababtoo ah 4 lagu daray 2 waa 6. inta kalena waa soo qaadanaysaa x square ta. hadda kan waan ka shaqaynay. waxaan kaloo ka shaqaynaynaa 3x iyo 10x waa like terms sababtoo ah 3x iyo 10x waxay wadaagaan xaraf isku mid ah. xarafkaasna waa x. waxay kaloo wadaagaan exponent isku mid ah. exponentigoodana waa 1, laakiin halka ma dhigno qarsoon yahay. marka isku dar 3x lagu daray 10x 3x lagu daray 10x waa imisa? waa 13x. 3 ku dar 10 waa 13. x kana waa ka qoranaysa. hadda lambar 9 negative 9 iyo 20 waa like terms sababtoo ah laba lambar haddaysan wadan xarfo ama exponential haddaysan wadan, taa micnaheedu waxa weeye labadooda waa like terms. marka haddii aad aragtid algebra lambar ay ka horeyso calaamada negative-ka ah ay ka horeyso, haddii aad aragtid taa micnaheedu waxa weeye lambarkaas waa negative number. calaamada ka jira haday ka horeyso lambar, taa micnaheedu waxa weeye lambarkaas waa negative. sida lambar 9 oo kale, lambar 9 waa negative sababtoo ah calaamadii ka jira ahayd ayaa ka horeysa. marka waxa lagu dhawaaqayaa negative 9 ayuu yahay. negative 9 marka negative 9 ku dar 20. negative 9 lagu daray 20 waa 11. marka hadda jawaabteenu waxay noqotay 6x square lagu daray 13x lagu daray 11. marka halka waxa subinaa waxa weeye waxaan isku darnay 4x square iyo 2x square waxaan helnay 6x square ayaan helnay. haddana waxaan isku darnay 3x iyo 10x waxaan helnay 13x. haddana negative 9 baan waxaan ku darnay 20 waxaan helnay
11 tusaalaha waa tirtiraynaa mid kale subinaynaa hadda tusaalahan baan isku daraynaa marka ugu horeysa marka isku daraysid polynomialska waxa la isku daraa kuwa like termska ah ama waxa la isku daraa kuwa leh xarfaha isku midka ah iyo exponentiga isku midka ah marka hadda polynomialkan 7x oo leh exponent 3 iyo negative 3x oo leh exponent 3 waa laba like terms ah sababtoo ah waxay leeyihiin xaraf isku mid ah iyo exponent isku mid ah marka waan isku daraynaa 7x oo leh exponent 3 iyo 3x oo leh exponent 3 isku dar waa negative 3 aan ka wadaa waa 5x oo leh exponent waa 4x waa 4x oo leh exponent 3 sababtoo ah 7 markii lagu daro negative 3 7 ku dar negative 3 waa 4 marka xarafka exponentigan waa la soo qaataa 2x square iyo 9x square ama 2x oo leh exponent 2 iyo 9x oo leh exponent 2 waa laba like terms sababtoo ah waxay leeyihiin xaraf isku mid ah iyo exponent isku mid ah marka waan isku daraynaa 2x square waxaad ku dartaa 9x square waa 11x square sababtoo ah 2 lagu daray 9 waa 11 x square kana waa soo qaadanaysaa halkaas ayaad ku dhiganaysaa ku ag dhiganaysaa hadda negative 8 ku dar 6 negative 8 lagu daray 6 waa 2 algebra hadii aad aragtid number ay ka horeyso calaamada ka jirta ah taamicneedu waxa weey numberkaas waa negative number marka negative 8 waxa ka horeysa calaamada ka jir ahayd 8 waa negative number negative 8 ku dar 6 waa 2 marka jawaabteenu wuxuu noqday 4x oo leh exponent 3 lagu daray 11x oo leh exponent 2 lagu sii daray 2 taa waa jawaabteenu hadda halkan waxa suubiyay waxa weeye waxaan suubiyay 7x oo leh exponent 3 iyo negative 3x oo leh exponent 3 ayaan isku daray waxaan helay 4x oo leh exponent 3 hadana 2x square iyo 9x square ayaan isku daray waxaan helay 11x square hadana negative 8 baan waxaan ku daray 6 waxaan helay 2 tusaalaha waan tirtiraynaa mid kale aan subinaynaa hadda waxaan isku daraynaa tusaalahan negative 5x oo leh exponent 4 lagu daray 6x oo leh exponent 3 lagu sii daray 4x lagu sii daray 3 lagu daray 8x oo leh exponent 4 kanaan 4 ku qoro exponentigiisa 4 laga jaray 16x oo leh exponent 3 lagu daray 5x laga jaray 15 marka ugu horeysa si aan iskugu darno polynomialkan waa inaan isku darnaa kuwa leh xarfaha isku midka ah iyo exponentiga isku midka ah marka negative 5x oo leh exponent 4 iyo 8x oo leh exponent 4 waa laba like terms sababtoo ah waxay leeyihiin xarf isku mid ah iyo exponent isku mid ah marka waan isku daraynaa negative 5x oo leh exponent 4 iyo 8x oo leh exponent 4 isku dar waxa weeye waa 3 oo leh exponent 4 sababtoo ah negative 5 lagu daray 8 waa 3 hadda 6x oo leh exponent 3 iyo 16x oo leh exponent 3 waa laba like terms sababtoo ah labadooda waxay leeyihiin xarfo isku mid ah iyo exponent isku mid ah marka waan isku daraynaa 6x oo leh exponent 3 waxaad ku dartaa negative 16x oo leh exponent 3 waa 10 sababtoo ah 6 waxaad ku dartaa negative 16 waa 10 marka waad qoranaysaa x ka waxaas hadda
4x iyo 5x waa laba like terms sababtoo ah waxay leeyihiin xarfo isku mid ah waxay kaloo leeyihiin exponent isku mid ah exponentigoodana waa hal aan muuqan marka isku dar 4x lagu daray 5x waa meeqo waa 9x way 4 lagu daray 5 waa 9x tana kama agfoga way daris bay la tahay la joogtaa marka hadda 3 lagu daray negative 15 3 lagu daray negative 15 waa meeqo waa 12 sababtoo ah negative number iyo positive number markaad isku dartid waa kala jar oo kale calculator ana isticmaashid marka waxaan isku daraysid hadda jawaabteenu wuxuu noqday 3x oo leh exponent 4 lagu daray 10x oo leh exponent 3 lagu daray 9x lagu sii daray 12 hadda halkan waxaan suubiyay 5 negative 5x oo leh exponent 4 iyo 8x oo leh exponent 4 ayaan isku daray markaas waxaan helay 3x oo leh exponent 4 haddana 6x oo leh exponent 3 iyo negative 16 oo leh exponent 3 ayaan isku daray waxaan helay 10x oo leh exponent 3 4x iyo 5x ayaan isku daray waxaan helay 9x haddana 3 baan waxaan ku daray negative 15 markaas waxaan helay 12 algebra haddii aad aragtid lambar ay ka horeyso calaamada ka jarta ah taa micnaheedu waxa weeye lambarkaas waa negative number tusaale ahaan 16 waa negative number waa negative number sababtoo ah waxa ka horeysa calaamadii ahayd ka jar 15 waa negative number sababtoo ah waxa ka horeysa calaamadii ka jarta ahayd taa waa in aad xasuusnaatid mar walba oo aad xisaab ka shaqeynaysid tusaalaha waan tirtiraynaa mid kale aan subinaynaa oo ku saabsan negative yaasha tusaalahan baan subinaynaa oo negative ka soo helaynaa 6x laga jaray 9x lagu daray 4x lambaradan saddexdan lambar oo x-yada wata keebaa negative ah waxa negative ka ah waa 9 ayaa negative ka ah sababtoo ah 9 wuxuu leeyahay waxa ka horeysa calaamada laga jarayda ah ama calaamada ka jarta ayaa ka horeysa marka tii aad aragtid lambar ay ka horeysa calaamada ka jar ah lambarkaas waa negative number tusaale ahaan 8 laga jaray 10 xisaabtan kuwan 8 laga jaray 10 labadan lambar keebaa negative ah negative waxa ah lambar 10 ayaa negative ah sababtoo ah lambar 10 waxa ka horeysa calaamadii ahayd ka jar ayaa ka horeysa marka 10 waa negative number 9na waa negative number 9x taa waa inaad xasuusnaatid mar walba cashirkaana inta ayuu ku dhamaaday Everything doesn't come complete with niggas like ours. That's why I see no need to compete with niggas like y'all. I just ask that when you see me, you speak up, nigga, that's all. Don't be ducking like you never wanted nothing. Everything doesn't come complete with